waxaan ka cudur daaranayaa inta casharada ay socdaan waxaan isticmaali doonaa erayo badan oo ah luqadda Ingiriiska oo tiknoolajiyada lagu soo kordhiyay laakiin aan af Soomaaliga la jaan qaadin wali taasna waxaan u dayn doonaa dadka Soomaaliyeed iyagoo af Soomaaliga ku hawlan waqtiga ay u bixiyaan erayo bixin laakiin mar walba waxaan isku day doonaa sida ugu fudud ciyaalka xaafadda ah ee aan si guud aan u sharxi karo af Soomaaliga haddaba ugu horeyn waxaanu macni eegi doonaa shutter speedka waa muddada ama waqtiga uu iftiinku galayo sensorka ama afka kaamarada second walba inta iftiinku u gudbaysa kaamarada sida 150s 1200 iyo wixii la mid ah haddaba haddii aad hoos u dhigto shutter speedka waxa uu ka dhigan yahay muuqaalkaaga ama wuxuu ka dhigayaa muuqaalkaaga motion blur ama ma arkaysi shaygi si dhab ah oo ma noqonayo in focus sidoo kale muuqaalkaaga waxa ka galaya jiitan sabab u noqon kara in si fiican loo arki waayo waayo number hoose oo shutter speedka ayaa isticmaashay ilaa 2 iyo 10 wixii la mid ah waayo shayga aad duubayso dadku daawanayana waa ay ku wareerayaan sida muuqaalkan aad daawanaysaan oo kale waxaan ku duubaynaa waa number hoose waxaad u isticmaali kartaa filimada noocan oo kale filimada riyooyinka cabsida iyo haddii aan sidoo kale aad ka dhigto 110 haddii aad ka dhigto wali waxaad arkaysaa in muuqaalku aad duubayso uu jiitamayo waxaanu sidoo kale uu ku keeni karaa wareer in qofka daawanaya haddaba haddii aan ka dhigno numberka sare ee ah shutter speedka oo ilaa 2000 waxaad arkaysaa in wax walba si xawli ah ay u dhaqaaqayaan waxa kale oo kugu imaan kara in aad iftiin area u baahato ama iftiin area inaad uga baahato ISO-ga taasina waxay kugu keeni kartaa gain ama sound oo cod ah haddaba waa inaad isticmaasho number sare si aad u hesho dhaqdhaqaaqa saxda ah ee shayga aad duubayso haddaba si aad u hesho numberka saxda ah ee shutter speedka waa inaan ka duulnaa qaacidada ah 180 degree shutter rule si aan u helno shutter speedka saxda ah haddaba haddii aad wax duubayso ama aad wax ku duubayso 24 frame per second double ayaad ka dhigaysaa oo ilaa waxaad isticmaali kartaa 48 ama 50 sababta aan qaacidadan u isticmaalayna waa inaan helo cinematic video ama muuqaalka saxda ah ee shayga aad duubayso dhaqdhaqaaqiisu u yahay aperture-ka ayaynu haddana eegi doonaa waxaanu baranay in shutter speedku uu yahay inta second iftiin galaysa isha kaamarada balse aperture-ku waa inta iftiin galaysa kaamarada waayo hadba inta aad furayso albaabka kaamarada tusaale ahaan haddii albaabka guriga aad furto hadba waxaad arkaysaa inta aad furtay iftiin leg in uu soo galo gudaha aqalka haddii albaabka aad wada furto iftiin badan ayaa soo gelaya haddii aad half ka dhigtana sidoo kale iftiin badan ayaa soo gelaya halka shutter speedkuna uu ku ogolaanayo muddada u dhaxaysa inta aad furayso albaabka inta aad u ogolaanayso in iftiinku soo galo haddaba ha ku wareerin awoodda furitaanka lensku wuxuu ku xiran yahay hadba lenska aad haysato inta uu awoodiisu ay tahay ama uu furmayo f-stopka tusaale ahaan haddii aad haysato f1.8 waxaad helaysaa shallow depth of field ama aragti ku kooban shayga waxa ka dambeeya aad eryamada gelinayso ama ay yihiin kuwa aad qarinayso muuqaaladaasina waa muuqaalada ugu badan ee dadku ay jecel yihiin haddaba haddii aad hesho f22 waxaad helaysaa deep depth field oo iyaduna ah ishiiba wada xirtay waa markaad xaqiijinayso in dhammaan waxa aad duubayso ama aad doonayso in ISO-ga waxaad ka helaysaa iftiin yar numberada sare ee ISO-gana waxaad ka helaysaa iftiin badan xasuusnow haddii aad badiso ISO-gaaga waxaad halis u tahay muuqaalkaaga u galo shucaac ama qaylo sidan oo kale ama noise grain fadlan haddaba waxaad ku dadaashaa hadba intaad isticmaali karto nambarada hoose inaad ISO-ga isticmaasho haddaba siday u wada shaqeeyaan oo kale saddexdan shay ee aadka muhiimka ugu ah tusaale ahaan oo kale anuu hadda markii aan wax duubayo waxaan ku dhaqmaa qaacidadan number 1 waxaan saxaa shutter speedka anigoo ku dhaqmaya sharciga 180 degree shutter rule markii laga reebo markaan doonayo muuqaalada motion blur-ka oo kale inaan sameeyo haddaba haddii aad wax ku duubayso 24 frame per second waxaan ka dhigaa shutter speedka 150s halkaas ayaan u daayaa aan kaga tagaa waa suurtagal haddii aan bedelo frame rate-ka oo aan ka dhigo sida 30 frame per second inaan 60 ka dhigi karo laakiin anigu 24 frame per second ayaan wax ku duubaa 50 baan u daaya shutter speedka number 2 aperture-ka waxaan sameeyaa hadba waxa ay xukuma sida aan u rabo shayga aan duubayo haddii aan duubayo shay kaliya oo aan ceryaamo gelinayo waxa ka dambeeya waxaan isticmaalaa numberada hoose ee aperture-ka ayaan wada furaa haddii aan doonayo inaan wada muujiyo dhammaan shayga aad duubaysana numberada sare ayaan xoojiyaa oo kor ayaan u kacaa f-stopka
number 3 waa shayga ugu dambeeya ISO-ga waxaa muhiim ah in aad ku dadaasho inaad isticmaasho nambarada hoose si aad uga fogaato muuqaalkaaga uu ka galo shucaac ama qaylo wata suurtagal haddii iftiinku uu kugu badan yahay waxaad isticmaali kartaa ND filter ama natural density filter oo isagu ka yareynaya muuqaalka oo isagu ka yareynaya iftiinka badan ee soo gelaya kamaradaada si aad u hesho shallow depth of field. Hadba daawadayaal casharkaasi waa ku baranaynay saddexda shay ugu muhiimsan kamarada oo ah shutter speed, aperture iyo ISO ayaan intaasi ku soo gabagabaynaynaa. waxaanu ku kulmi doonaa casharka xiga oo aan isagana aan ku soo qaadan doono hadba qaybaha aan isleenahay waa muhiim muuqaal duubista. waxaan iskaga tegayaa nabadgelyo.